wafdi ka socda wasaaradda maaliyadda uu hogaaminayo agaasima ku-xigeenka xiriirka dadweynaha iyo xogta wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayna wehelinayaan saraakiil kale oo ka tirsan wasaaraddaasi ayaa xafiisyada kastamka iyo cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda gobolka Sanaag soo gaarsiiyay agab caafimaad oo lagaga hortegayo xanuunka safmareenka ee COVID-19 kaasi oo wasaaradda maaliyadda ugu tala gashay in ay shaqaalahoodu kaga gaashaantaan xanuunkaasi coronavirus waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay agaasima ku-xigeenka xiriirka dadweynaha iyo xogta wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Naasir Aadan Maxamed waxaan ku sugannahay magaalada Ceergaabo waxaan joognaa xafiiskii wasaaradda maaliyadda ee cashuuraha beriga iyo sidoo kale xafiiskii kastamka sugnagteeda waxaan nala jooga madaxdii maamulihii kastamka iyo agaasima maamulihii cashuuraha beriga gobolka oo runaantii iyagu shaqada saaka xafiiska halkan ugu nimid waxaanu sidnaa qalab aan ugu talagalnay in shaqaaluhu ay isticmaalaan oo lagaga hortegayo COVID-19 marka ka wasaarad ahaan annaga oo ka duulana badqabka shaqaalaha wasaaradda oo iyagu ah shaqaalaha aan la fasaxin ee xaaladan adag iyadoo lagu jiro looga maarmi waayay inay hawlaha qaranka ama shaqooyinka qaranka ay gutaan waxaanu sidnaa qalabkii oo ay ka mid yihiin face maskii la xiranayay golofyadii Allahumma musta'an baalada antibacterial ahayd ee aan dareeraha marka waxyaabaha waxaan ugu talagalnay inay shaqaalo isticmaalaan maadaama ay yihiin dad bulshada ku dhex jira waxaan ku baraarujinaa shaqaalaha wasaaradda inay aad u digtoonaadaan agaasimuhu waxa uu sidoo kale qalabkan caafimaad ka soo qaybiyay gobolada Saaxil Togdheer Saraar iyo Sool waxaan soo marnay magaalooyinka Berbera iyo Burco oo waxaan u gaarsiinay alaascaanood baan gaarsiinay iyaguna alaabtan oo kale si yacni shaqaaluhu ay ugu shaqeeyaan maadaama cudurkan COVID-19 ka adduunyadii dhaqaalaha haysatay ee caafimaadka ka horumarsanayd jahawareer badan ku riday innaguna awoodeennu waxa weeyaan inaan kulay ka hortago cudurkan leeyahay dawo ma laha marka shaqaalaha waxaan ku gabaabinayaa inay hadii Ilaahay badankeeda leeyahay ay aad u taxadiraan oo ay qalabkan isticmaalaan si yacni ay bulshadooda u badbaadiyaan nafahoogana ay u badbaadiyaan waxaana geesta kale halkaasi qalabkan caafimaad ee la soo gaarsiiyay ka mahad celiyay Maxamed Axmed Ismaaciil maamulaha kastamka iyo sidoo kale maamulaha cashuuraha beriga Jimcaale Jaamac Ibrahim waxaan ku mahad celinayaa qalabkan soo gaarsiiseen shaqaaluhu u baahnaa inta dad bil la kulmayaan khasnada iyo qaybtii evaluationka inta u baahnaayeen inay wax fara ka gashadaan iyo afka ay helaan marka aad baan ugu mahad celinayaa wasaaradda iyo waxda soo qaadatay loo keentay soo gaarsiisay baan ugu mahad celinayaa runtii maadaama nahanab gobol aad iyo aad u fog xanuun aadna u yimi magaraysa caalamkiiba dhaga kala weelay qalabkan la soo gaarsiiyay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wasaaradda iyo khaasatan waaxda xiriirka bulshada wasaaradda maaliyadda maadaama xagga bariga ay doorkan ugu soo horeysiyeen waxaan qaban xagga bariga ka qaybiya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinay wasaaradda guud ahaanteed qalabka waan u baahnaynaa baahi weyn baan u qabnay oo shaqaale dadka la kulmayaan oo meel wasaaradda ugu macaamilka badan ay dadku soo galayaan lacagtii baa la tirinayaa la xireynayaa gacmo badan baa kulay isdhaafaya marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa qalabka ka hortaga Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceergaabo.